munaasabad lagu soo dhaweynayay xayiraadii laga qaaday Sheekh Axmed Nuur Jimcaale iyo shirkadii Al-Barakaat oo ay isugu yimaadeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Ingiriiska ayaa waxa lagu qabtay magaalada London. waxaan idinkaga mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirkan munaasabadan lagu soo dhaweynayo xayiraadii laga qaaday ganacsade Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale iyo shirkadii Al-Barakaat oo ay la macno tahay in ummadda Soomaaliyeed oo dhan laga qaaday xayiraad saareed taasoo aan maanta farxadeeda u wada joogno ilaahay idankii waxaan rajaynayaa sida ay u saameysay ummadda Soomaaliyeed shirkadii Al-Barakaat xilligii ay shaqaynaysay inay marlabaadna u rajayno inay u soo laabato adeegii bulshada iyo wixii ay ummadda uga baratay khayr Allah siiyo Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale waxa culayska la saaray iyo xayiraadda la saaray runtii waa u adkaystay dadaal badanna waa muujiyay dulqaad badanna waa muujiyay dhabaantii waxaan wada ogsoonahay ama hore u wada naqinay shirkadda Barakaat inay ahayd shirkad dadka Soomaaliyeed oo dhan ay saameyn ku leeyihiin oo dadka Soomaaliyeed qaybo badan oo muhiim ah ay shaqaale ka wada ahaayeen xayiraadda shirkadaasi inay ahayd dhib weyn iyo culays weyn oo ummadda Soomaaliyeed ku timid sidoo kale waxa khadka taleefanka uga qayb galay Sheekh Axmed Nuur Jimcaale ugana mahad celiyay dadkii halkaasi ka soo qayb galay iyo dadkii qabankaabiyay dhammaantiin aad iyo aad umaasinta u suurtageliyay liqaagan labaad waxaan rabay inaan mahad u soo celiyo dhammaan intii ka qayb qaadatay aad iyo aad halkaan mahad ugu soo jeedinayaa oo ugu horeeyaan madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shirkadda Al-Barakaat iyo walaalkan Sheekh Axmed Nuur dadaalkii uu bilaabay ee sameeyay wuxuu hormuud u ahaa isaga iyo ganacsato kale oo Soomaaliyeed xilligii aafadan Soomaali ku habsatay ay bilaabantay ee dagaalka sokeeye bilaabmay shirkadihii iyo ganacsatadii Soomaaliyeed ayuu hormuud u ahaa ee bilaabay inay adeeg laga maarmaan oo nolosha Soomaalida asaas u ahaa inay markaa ay bilaabaan runtii waxyaabaha inoo geysatay bulshada Soomaaliyeed horumar badan oo sheekhu uu wadanka ka fulin lahaa ama ummadda Soomaaliyeed u qaban lahaa ayaa ay naga xakisay muddadii dheereed xayiraadu ay saarneed Sheekh Axmed Nuur waa nin ganacsato Soomaaliyeed ah saasna aan u daaweynan anigu iga weeyahay mooyee aan si kale u sii weyneen waa nin aan ka soo qayb galin taageerinna hay-adihii ku hardamayay Soomaaliya ama qabiilada sheeganayay ama kooxeedyada diimeedka sheeganayay ama burburka ehelka u ahaa Axmed Nuur waa nin ku sifoobay marnaba inuusan taageerin ilaahay waxa mahad leh asagoo laga gardaran yahay oo aan ninna wax ka biin oo diinta islaamka midda u fiican haysta oo agoonta koriya oo biyo siiyey oo aanan been ugu marqaati furayn oo Soomaali meelay joogtaba iskugu mid u tahay ilaahay xayiraadda ka qaaday waa u mahadnaqaynaa waxaan u mahad celinayaa ummaddii Soomaaliyeed iyo dawladihii Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay ee u guntaday in ay soo dhaweeyaan oo xayiraadda laga qaado Axmed Nuur iyo shirkadiisa aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay jaaliyadii UK ee qabanqaabisay xafladan qiimaha iyo qaayaha weyn leh ee ganacsadii weyna Axmed Nuur Cali Jimcaale iyo shirkadii baaxadda weyneed ee Barakaat loogu qaada cunaqabateynta waxaan leenahay shirkadda Barakaat iyo Axmed Nuur Cali Jimcaale ilaaha barakeeyo waa ognahay waxqabadkii faraha badnaa ay noo soo qabteen ama imanka ay u qabteen dalka Soomaaliya meel walba oo la joogo salaan kadib sharaf ayay ii tahay anigoo ka mid ah raggii ugu horeeyay ee ka soo shaqeeyay shirkadda Barakaat xilligii ay wadatay magaca Barakaat runtiina xarumo badan oo ka mid ah xarumaha isgaarsiinta ee ka shaqeeya gudaha Muqdisho aasaaskooda wax badan aan ka lahaa waxaan codsanaa
sheekh axmed nuur ka codsanaa hadalka dhammaantiis waa la yiri inuu shirkaddii dib u soo celiyo ugu yaraan waxaa ka shaqaynaysay sida uu sheegay abukaatuhu 8,000 oo qof laakiin aniga waxaan aaminsanaa aragtideed inay ka badan tahay 8,000 oo qof laga soo bilaabo Hargeysa ilaa mataqaanaa Kismaayo inta aan xasuusto xafiisyo ku leeyahay waana shaqaynayeen dad badan ka shaqaynayay kulligiin inta maqan inta joogta Soomaaliya oo dhan waa humaad celinayna waxaan aaminsanahay shirkaddan inay ahayd shirkad ummadda Soomaaliyeed waqti loo baahan yahay oo ummaddu ay u baahan tahay u soo baxday inay ahayd ugu dambeyntii xafladan loogu dabaaldegayay xayiraadda dhawaan laga qaaday Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale oo ah milkiilihii shirkaddii Albarakaad ayaa waxa ay ku soo gabagabowday si heer sare ah Yuusuf Garabay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed London